arrimaha dibadda ee wadamada Faransiiska iyo Jarmalka ayaa la sheegay inay toddobaadkeen ugu soo foodalay booqasho rasmi ah ku soo gaari doonaan dalka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Catherine Colonna iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Ilana Baerbock ayaa la sheegay inay soo booqan doonaan Itoobiya. Labada wasiir ayaa shaaca ka qaaday in Itoobiya u soo socdaali doonaan si ay dhidibada ugu siyaasaan geedi socodka dhaqangelinta heshiiska nabadeed ee ay gaadheen dowladda dalka iyo kooxda TPLF. Wasiir Colonna oo la hadlaysay telefishinka ayaa tidhi aniga iyo dhigayga Alena waxaan toddobaadkeen ugu soo wajahan ku aadanahay Itoobiya si aan u sii xoojino heshiiskii nabadeed ee uu garwadeenka ka ahaa ururka Midowga Afrika. Xogaha qaar ayaa sheegaya in booqashada labadani wasiir ay ku beegan tahay 4 ilaa 5 bisha ee nagu soo foodalay. Booqashada labadani mas'uul ayaa la filayaa inay sidoo kale wada hadal dheeri ah kala yeelan doonaan dhinacyada ay khusayso arrimaha ay ka mid ka yihiin damaanad qaadka cunnada, xiriirka Midowga Yurub iyo Itoobiya iyo sidoo kale xiriirka Midowga Yurub iyo ururka Midowga Afrika. deegaanka Oromiya ayaa la sheegay in dhulka masnada ah ee laga beeray qamadida xilli jiilaaleedkani uu gaadhay 1 milyan oo hektar. Sida uu sheegay madaxweynaha deegaankaasi Shimeles Abdiza, dhulka masnada ah ee laga beeray qamadiga xilligan jiilaalka ah ayaa gaadhay in ka badan 1 milyan oo hektar. Sida uu ku sheegay madaxweynuhu fariin qoraaleed uu ku soo qoray bartiisa baraha bulshada, waxa uu bogaadiyay waxqabadka ay muujiyeen mas'uuliyiinta iyo xirfadlayaasha ku kala sugan heerarka kala gedisan. Waxqabadkani ayuu ku sheegay in uu yahay mid lagu faani karo taariikhduna qori maayarka magaalada Addis Ababa Danach Ababe ayaa qaar ka mid ah bulshada danyarta ah ee ku nool xaafadda Kirkos ku wareejisay guryo wadareedyo loogu talagalay. 104 ka mid ah guryahaas ayaa la sheegay in uu maamulka magaalada Addis Ababa dhisay, halka guryaha kalena ay ahaayeen kuwo si sharci darro ah lagu dhisay oo ay dawladdu la wareegtay kadibna dayactir lagu sameeyay, sidaasna bulshada danyarta ah loogu wareejiyay. Maayarka ayaa halkaasi ka sheegtay in bulshadani guryaha lagu wareejiyay ay ka mid ahaayeen shakhsiyaad ku soo dhaawacmay dagaaladii dalka ka dhacay, shakhsiyaad iyaguna ay haysteen dhibaatooyin kala duwan, iyo qoysaska qaar ka mid ah ciidamadii ku nafwaayay dagaaladii dalka ka dhacay. Dr. Abraham Balay, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegay in danjireeyaasha dalka ku matala dalalka kala duwan ee caalamka looga fadhiyo inay qabtaan shaqooyin ay ku garab istaagayaan dadaalada isbedel ee ay wasaaraddu wado. Wasiirka ayaa hadalkani ka sheegay kulan uu danjireeyaasha kala duwan ee dalka ku matala wadamada caalamka kula yeeshay akaadamiyadda maamulka Afrika ee ku taala magaalada Sululta, halkaas oo uu danjireeyaasha uga warbixiyay shaqooyinka iyo isbedelada guud ee ka socda wasaaradda. Wasiirka ayaa kula dardaarmay danjireeyaasha in ay ciidanka difaaca qaranka ku garab istaagaan muruq maal iyo maskax intaba. Kulanka ayaa qabsoomay iyadoo ay goobjoog ka tahay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda danjire Bortukanayano. Danjireeyaasha ayaana la sheegay inay wada tashi dheer ka yeesheen warbixinta oo halkaasi ka soo jeediyay wasiirka gaashaandhigga. shirkadda isgaadhsiinta Ethio Telecom iyo Getfact Itoobiya ayaa kala saxiixday heshiis ay si wada jir ah ugu fulinayaan barnaamij waxbarasho oo loogu magac daray Jiil Firfircoon. Firihuwa Tamiru, maareeyaha guud ee shirkadda isgaadhsiinta Itoobiya oo ka hadashay heshiiska ayaa sheegtay in loo baahan yahay barnaamij dijitaal ah oo waxbarasho oo kaalin ka geysan kara barnaamijyada guud ee dijitaalka ee dalka ka hana qaaday. Maareeyaha ayaa sheegtay inay ku tala jiraan in ay soo dhiraan mashaariic la mid ah middan si looga miro dhaliyo mashaariicda guud dijitaalka ee dalka ka socda. Waxa kale oo ay intaasi ku dartay in mashruucu qayb ka yahay mashaariicda lagu kabayo gaarsiinta adeega waxbarasho ee dalka. Waxa ayna ballan qaaday in ay shirkadu diyaar u tahay inay la shaqeyso shirkadaha iyo muwaadiniinta dalka u dhashay ee qurba joogta ah ee la yimaada barnaamijyada caynkan ah. Dhinaciisa asaasaha iyo madaxa shirkadda Getfact Itoobiya Dr. Birhano Balja ayaa sheegay inuu barnaamijkan hibilow u yahay barnaamijyada ay qurba joogta dalka u dhalatay ku caawinayaan dalkooda hooyo. mas'uuliyiinta xisbiga barwaaqo ee deegaanada Oromiya iyo Axmaarada ayaa sheegay inay qaban qaabiyeen kulan wada tashi ah oo looga gol lahaa in hore loo sii wado guulaha la gaadhay, sidoo kalena caqabadaha jira looga gudbo si walaaltinimo ay ku dheehan tahay. Kulankani wada tashiga ah ayaa muddo 2 maalmood ah ka socday magaalada Bahardar ee caasimadda deegaanka Axmaarada, waxaana hal ku dhig looga dhigay nabadgelyo waarta iyo barwaaqo loo siman yahay. Kulanka ayaa la sheegay inay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta ugu sarsareysa labada deegaan, mas'uuliyiinta gobol
gobolada iyo degmooyinka deegaanka Amxaarada iyo mas'uuliyiinta xisbiga barwaaqo ee deegaanka Oromiya kadib gabagabadii kulanka ayaa waxa saxaafadda la hadlay madaxa xisbiga barwaaqo ee deegaanka Oromiya Fikado Tasama iyo madaxa xisbiga barwaaqo ee deegaanka Amxaarada Girma Yishtila labada mas'uul ayaana shaaca ka qaaday tan iyo isbedelkii dalka ka dhacay labada shacab iyo mas'uuliyiinta labada deegaan si isku duubni ah uga qayb qaateen isbedeladii dalka ka dhacay gabagabadiina waxa ay sheegeen in kulanka la isku la qaadaa dhigay guulihii la gaadhay caqabadaha jira iyo qorsheyowga mustaqbalka